mudanayaasha iyo marwooyinka sharafta leh iga guddooma salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib iyo ogolaada inaan idinla wadaago arrimaha aan u arko in baarlamaanka 11aad uu xoogga saaro kadib marka aad ii doorataan afhayeenkiina golaha shacabka haddii alla yidhaahdo. mudanayaal iyo marwooyin, haddii rabbi idmo aad ii doorataan guddoomiyaha golaha shacabka, ugu horrayn waxaan ku shaqayn doonaa tala wadaag anigoo tixgelin iyo mudnaan siinaya kana faa'iidaysanaya fikradaha aqoonta waayo aragnimada xubnaha golaha shacabka ee sharafta leh. goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu ahaanayaa hay-adda hoggaaminaysa dalka. mudanayaal iyo marwooyin, innaga oo ka faa'iidaysanayna dhacdooyinkii iyo khatarihii waddanku soo maray, waxaan hubinaynaa inaan hay-adaha dawliga ahi isku milmin oona jiro la xisaabtan iyo kormeer oo uu baarlamaanku ku samaynayo dhammaan hay-adaha dawladda. mudanayaal iyo marwooyin, baarlamaanku wuxuu yeelanayaa sida caadiga guddi waliba uu u xilsaaran yahay inuu la howlgalo hay-adaha iyo wasaaradaha uu u xilsaaran yahay. sidoo kale xubnaha baarlamaanku waxay ka mid noqonayaan kana qaybgelayaan guddiyada baarlamaanada caalamiga ah, afrika, kan carabta, baarlamaanada waddamada reer galbeedka, eshiya, iyo baarlamaanada aan saaxiibada gaarka nahay ama aynu xidhiidhka gaarka la leenahay. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ahaanayaa afhayeen qaata oo fuliya go'aammada, mana dhici doonto inaan qaato go'aamo gaara oo aan baarlamaanku aqlabiyad ku ansixinin. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan diyaarinayaa qorshe dhammaystiran oo xildhibaan kasta iyo qoyskiisa ku lahaanayo daryeel caafimaad oo buuxa, full medical insurance. sidoo kale si xildhibaanadu u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah, waxaan fadhiyada ugu horreeya soo bandhigi doonaa qorsho daryeel iyo dhaqaale oo xildhibaan kasta uu helayo gunno nololeed, gunno guri, gunno waxbarasho, gunno safar, gunno xafiis, gunno amni iyo gunno gaadiid. sidaa darteed waxaa ii qorshaysan inaan kalfadhiyada ugu horreeya ee baarlamaanka haddii alla yidhaahdo soo bandhigo qorsho dhaqaalaha waxyaabaha aan muhiimka ahayn lagu bixin jiray loogu soo wareejinayo daryeelka baarlamaanka, innagoo oo ka ambaqaadayna sixir bararka iyo nolosha meesha ay marayso, si xildhibaanadu ay u maareeyaan in gunnooyinkooda inta aan kor ku soo sheegay marka la isu geeyo ay noqoto ilaa $8,000 bishii. sidoo kale xildhibaan kasta marka uu fasaxa ku jiro inuu helo ilaa $10,000 oo uu dib ugu laabanayo deegaamadii uu ka yimid, si uu ula wadaago shacabka uu matalo waxyaabaha duruufaha ay haysta. waxaan xaqiijinayaa in qiimaha, xushmadda iyo xasaanadda xildhibaanku ahaado halka ugu sarraysa. si taa loo xaqiijiyana waa in xildhibaanku haystaa nolol iyo daryeel ku filan oo uu kaga maarmi karo in xildhibaanka sumcaddiisa hoos u dhacdo. waxaan u howlgelayaa sidii goluhu heshiisyo toos ah ula geli lahaa baarlamaanada caalamiga ah, si xubnaha baarlamaanku ula falgalaan baarlamaanada dhigooda ah, isuna weydaarsadaan aqoonta iyo waayo aragnimada ay leeyihiin. maadaama amnigu yahay muhiimadda koowaad ee dalka, goluhu wuxuu ahmiyad gaara siinayaa kor u qaadista daryeelka iyo mushaharooyinka ama xuquuqaha ay ciidamadu helaan. si loo xaqiijiyo daryeelka ciidamada, fadhiyada ugu horreeya ee golaha shacabka waxaan u soo bandhigayaa qorshe dhaqaalaha aan waxyaabaha muhiimka ahayn lagu bixiyo loo soo wareejiyo ciidamada, maadaama ay difaaca dalka ku jiraan mushaharkooda la gaadhsiiyo askari kasta ilaa $500. qodobada kale ee baarlamaanka uu muhiimadda siin doono waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka 20 sano qabyada ah, meelmarinta meeqaamka magaalada muqdisho si shacabka gobolka banaadir ay u helaan matalaad dhab ah, wada hadallo daacad laga yahay oo xaqiiqda ku qotoma oo lala galo somalilan, sharciga wadaagga qaybsiga daryeelka khayraadka dalka, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah, sharciga shaqo abuurka iyo sharciga daadejinta nidaamka federaalka ilaa heer tuulo. mudanayaal iyo marwooyin, sida aan dhammaanteen markhaati ka wadanahay, dalkeennu wuxuu ku jiraa
xaalad hubanti la'aan ah muwaadin kasta oo Soomaaliyeed hadduu shaqo aadayo hadduu arday yahay iyo hadduu hawl kale ku jiraba waxa uu ku jiraa walwal uu u qabo nafsadiisa iyo badqabkiisa taasoo ay keentay in dalkeenu god dheer ku dhaco oo ay sabab u tahay nidaamka qabyaaladaysan ee dalku dad badan ay doonayaan inay dalku uu ku sii jiro godka dheer ee madow waxa inagu riday fikirada iyo nidaamyada qabiilaysan ee aan horumarka lahayn ee dalka iyo dadka lagu ragaadiyay walaalayaal dadyowga caalamku inagama fiicna inagama aqoon badna inagamana tala wanaagsana kaliya waxa ay meel iska dhigeen qabyaalad iyo waxa la midka ah sidaas darteed si aan caalamka ula jaan qaadno waxa laga maarmaana inaynu qabyaaladda iyo nooca loo fakarayo wax badan ka bedelo ee dalkeenu ku soo jiray walaalayaal wadaniyadu ma aha inaan calanka buluuga laabta ku xidhanno baabuurta ku xidhanno jidadka ugu dabaaldegno wadaniyadu waa inaan maanta oo kale u hiilino dalkeena iyo dadkeena kana soo saarno godka dheer ee qabyaaladu ku riday mudanayaal iyo marwooyin kuraasta dalka marka loo yimaado nidaamka 4.5 waa hab saami qaybsi oo si fudud oo aan laga fiirsanin ku baxay kana yimid kuwa doonayay inaynaan caalamka la jaan qaadin sidaa darteed muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay u siman yihiin xuquuqda qabashada jagooyinka dalka ma jiro qabiilo ay u xidhan yihiin kuraas gaar ah waxaana xubnaha golaha ka codsanaya inaan maanta shacabka Soomaaliyeed ka xoreyno fikirada qabiilaysan walaalayaal inteena dulman ayaa ka badan inta yar ee caadisatay inay inagu duldhoolaato sidaas darteed waxaan idinka codsanayaa inaad 27 Abriil 2022 u dhigtaan cashir lama ilaawaan ah oo mustaqbalka Soomaaliyeed dib u soo nooleynaya xubnaha sharafta leh 27 Abriil waxaan haysanaa fursad qaali ah oo ay adag tahay inaan dib inoo soo marto sidaa darteed waa inaynaan jiilalka dambe iyo caruurteena uga tagin isbaarada qabiilaysan mudanayaal iyo marwooyin inaga oo xusuusan kitaabkii Alle ee aan ku dhaarannay ee ahaa inaan fulinayno waxa dadka dalka iyo diinta dan u ah waxa lagama maarmaan ah inaan daaqada ka tuuro wax qabiil iyo qof gaar ah dan u ah mudanayaal iyo marwooyin waxaan la wada soconaa in xildhibaanada sharafta leh loo soo dirayo taleefanno waxyaabo badan oo qabiilo iyo waxaan macna lahayn la doonayo in laga dhaadhiciyo waxaad ogaataa mudane taleefannada badan ee soo dhacaya waxay ku egyihiin inta aad codkaaga haysatid maalinta aad bixiso mar dambe taleefannada ma arkaysid mana maqlaysid qof kula soo hadlayana ma arkaysid mudanayaal iyo marwooyin sida caadada siyaasadeed iyo doorashooyinka Soomaaliya looga bartay waxa wada ogsoonahay in kooxaha qabyaaladda huwan ee aan kor ku soo sheegay oo wata dhaqaale dibadda laga soo waariday looguna talagalay in maskaxda iyo muruqa laynaga curyaamiyo si dadkeena iyo dalkeena ay ugu hayaan godkaas madow ayna ka shaqeynayaan sidii aynu ficeen uga hadhi lahayn haddaba waa inaynu 27 Abriil 2022 haddii Rabbi yiraahdo barnaa in baarlamaanka 11aad ka duwan yahay baarlamaanadii hore haddaba mudanayaal iyo marwooyin inaga oo diin aqoon waayo aragnimo karti sharaf iyo dal inta la eg ilaahay ina makaniyay in shacabka Soomaaliyeed qabiil iyo shakhsiyaad ku danaysanaya uu afduubnaado inaan inagu maanta ogolaano ma aha wax la aqbali karo mudanayaal iyo marwooyin inaga oo ka wakiil ah shacabka Soomaaliyeed maanta waxa ina hor yaalla inaan kala dooranno laba jid oo kala ah inaan ku soconno jidkii hore ee aqoonteena dadnimadeena iyo dadkeena qaxa tahriibka iyo cabsida baday oo beelo iyo shakhsiyaad gaar ah u adeegaya iyo inaan maanta Soomaaliya ka xoreyno dhammaan inta aan kor ku soo sheegay iyo in kala badan oo aad ogtihiin mudane iyo marwooyin
si taa loo xaqiijiyo waxaan kaa codsanayaa codkaaga baarlamaanka 11aad oo ay aqlabiyadiisu tahay dhalinyaro aqoon leh waxaan u soo jeedinayaa inaan maanta shacabka Soomaaliyeed u furno albaabka horumarka dimuqraadiyadda amniga aqoonta midnimada wadajirka iyo sinaanta aynana jirin cid kuraas gaara oo koraysa iyo leh kuwa kuraas hoose leh iyo kuwa aan kuraasba loogu talagelin sida ay u haystaan mudanayaal iyo marwooyin maanta waa inaynu meesha ka saarno murashax hebel ayaa dawlad hebla sida ay yiraahdeen guddiga sida ay yiraahdeen hal daqiiqa ku dhiman maana ila hadlayso هذا دقيقة دقيقة لبضة دقيقة سمر دقيقة مدنيال waxaa laga maarmaanay inaan kala doorano laba jid oo ah murashax hebel ayaa lacag waa inaynu meesha ka saarnaa murashax hebel ayaa dawladda lacag ka soo qaatay qabiil hebel kursi hebel ayuu leeyahay qabiil hebelna kursigaas hebel ma geeyo qabiil hebelna kuraas ma balahaba innagana dhalinyaradeennan aqoonta leh hadhow la yiraahdo waxaad tihiin ree hebelna kuraastaas ma laha ee kuwaasay leeyihiin xubnaha baarlamaanka cusub xildhibaanada baarlamaanka cusub iyo kuwii horay u jiray waxaa laga yaabaa in ilaa intaad xildhibaanka noqoteen in aad laydin wareerinayo laakiin mar kale waxaan idin xusuusinayaa codkiinnu waa muhiim inta aad haysataan ayan baana laydin raadinayaa waxaan ku xusuusinayaa dhammaantiin si aan khatarahaas oo dhan uga gudubno waxaan kaa codsanayaa inaad codkaaga isiiso igulana xisaabtanto fadlan si codkaaga aniga oo Cabdirashiid Maxamed Xidig oo 20 sano oo experience ah ama aqoon iyo waayo aragnimo baarlamaanka u leh Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato waxaan alla weyne weydiisanayaa inuu jidka san ina waafajiyo dalka inoo dejiyo bogeennana burcad isu mariyo wabilaahi tawfiiq aad ayaa u mahadsantihiin